hoteelka Mana Guest House ee magaalada Boorama waxaa habeennimadii xalay ka dhacay shir aad u balaaran oo ay soo qaban qaabiyeen dhalinyarada beel ka mid ah beelaha dega gobolada Awdal iyo Salal. Shirkan ay dhalinyaradan isugu yimaadeen ayaa waxa ay ku falanqeeyeen arrimaha dhaqanka ee beelaha dega gobolada Awdal iyo Salal, isla markaana waxa ay qaadaceen inay taageersan yihiin sida ay hadalka u dhigeen ugaasnimada Cabdirashiid Ugaas Rooble. Waxaana shirkan intii uu socday ka hadlay dhalinyaro fara badan, waxaana qaarkood hadaladooda ka mid ahaa salaan aad iyo aad u ballaaran aan ugu gudbinayaa suldaanka guud ee beelaha Habar Cafaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawel. marka labaad waxaan ka salaamayaa jumhuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Xamuud Siiraayo, madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Sayid iyo dhammaan inta maxay dowladda u shaqaysada. walaalayaal, halkan ilaaha isku keenay ayaa mahadle aad iyo aad baad u mahadsantihiin nagala soo qayb gasheen shirkadooda sharafta leh. waxaynu xoojinaynaa amba aynu inagu u nahay tusaale hadalkii ka soo yeedhay amba hadaladii qiimaha badnaa ee suldaankeena suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawel xafidahu allahu waraacah uu ka jeediyey shirkii bishan aynu ku jirna ee Ramadaan ka dhacay Hotel Rays, bisha Ramadaan lixdeedii ka dhacay Hotel Rays. shirkaasoo ahaa mid laga wada hadlayay aayaha iyo mustaqbalka dambe ee ugaaskiisa Maroon uu lahaan jiray. suldaankeenu ilaahay cimrigiisa ha dheereeye waxa uu halkaasi ka jeediyey oo uu caddeeyey ma ahayn hadallo uu jeebkiisa kala soo baxay, balse waxay ahaayeen hadallo ku qornaa xeerkeennii aynu ku soo askunnay shirkeennii barakaale ee ka dhacay deegaanka Xeebo. shirkaasi aynu qof kasta oo beelaha Habar Cafaan ka dhashay uu garwaaqsan yahay, miyi iyo magaalo, dal iyo dibad, dhammaanteenba mowqifkaasaynu aaminsanahay. gorgortanna ma gelayo hadallada suldaankayaga iyo xeerkayagu, midna gorgortan ma gelayaan. rag baa waxay kaga maahmaaheen shirkii habeenkii dhaweytooriye ka dhacay Rays hankaraara lagu warjiyo ragga hadalkaa ka yidhi shirka waxaanu leenahay waa haddaynaan lagu dhejinaynin magaciina ku hadlo magaciina kusoo dhaweeya ugaas oo magaca kala duwis hadduu weysaninajeedo waa bayaan ku saabsan dhalinyarada beelaha Habar Cafaan. dhalinyarta beelaha Habar Cafaan markii ay dirseen xeerka beelaha Habar Cafaan ee Xeebo qodobkiisa 19 oo tilmaamaya sifaha lagu gaari karo midnimo dhaqan, kadib markii ay kow amni xumada iyo isku horimaadka iyo jahwareerka siyaasadeed ee goboladani gaar ahaan magaalada Boorama laga abuurayo, waxa mas'uuliyadeeda qaadanaya oo ku soo ridinaya ragga dibidaabyada bulshada u soo geystay ee arrimaha qarsoon guryaha u xireystay ee diiday in la isku baxo oo xeer laga midaysan yahay lagu dhiso dhaqan lagu midaysan yahay. qof kasta oo raba wuxuu gaar u leeyahay inuu keeno gobolkani magaciisa uu kugu keeni karaa, laakiin kuma keeni karo magac lala leeyahay. Cabdi Fataax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.